السلام عليكم أصحابتا مeel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena galka ciyaaraha qodobada ciyaaraha aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah Liverpool oo aan leenahay hambalyo meel kastoo aad joogtaan ku guuleystayaasha Premier League Liverpool oo kooxda ugu guulaha badan England kala wareegtay Manchester United waxaa kaloo maqli doontaan Liverpool waxay kulan walba u ciyaartay sida inay tahay fursadoodii ugu dambeysay Pep Guardiola oo arinkaas aad iyo aad uga hadlay Steven Gerrard oo hambalyo weyn ah u diray kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Jordan Klopp oo qosol la dhacay markii loo sheegay in xidigaha Manchester City ay u safan doonaan una sacbin doonaan ciyaartoydiisa isbuuca dambe waxa kaloo ku maqli doontaan warar kale la xiriirinayo waxa uu la mid yahay Xavi Leo Messi oo ammaan uu qubay Arthur Melo oo ka tagaya kooxda kubadda cagta Barcelona iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan asxaabta haddii channelkeena aad ku cusub tahay fadlan subscribe-ka noo saar gambaleelkana taabo si aad u hesho markasta fariinteena aan soo dhigan ku soo dhawaada mar kale qodobadeen iyo faahfaahsan balyo Liverpool wili hambalyadeedii ayaan wadnaayo horyaalka Premier League ayay ku guuleysteen Liverpool waxaan leenahay congratulations meel kastoo aad taageerayaasha Liverpool aad ka joogtaan dunida guuleystayaasha horyaalka Premier League guusha Liverpool ee horyaalka Premier League ma ahan mid la dhayalsan karo waa horyaalkoodii ugu horeeyay ee muddo 30 sanadood ah waana koobkoodii ugu horeeyay ee abid ee Premier League waxaa taasi ka sii muhiimsan in koobka ay kaga saramartay kooxda kubadda cagta Manchester United iyagoo noqday kooxda ugu guulaha badan ee horyaalka kubadda cagta Ingiriiska waxayna ku guuleysteen horyaalkoodii 19aad Liverpool wali hal horyaal ayay ka hooseysaa wadarta ay ku guuleysteen Manchester United marka loo fiiriyo oo 20 horyaal wadata si kastaba marka aad xisaabto koobka waaweyn ee ay ku guuleysteen labada kooxood Liverpool ayaa haatan ka sareysa Manchester United iyadoo Liverpool ay qaadatay 43 koob oo waaweyn halka Unitedna ay qaadatay 42 koob 19 horyaal oo ay ku guuleysteen Liverpool waxay sidoo kale ku guuleysteen 7 FA Cup ah 8 League Cup ah 6 Champions League iyo 3 koobka kale ee Yurub laga ciyaaro kooxda saddexaad ee ugu guulaha badan ee Ingiriiska waa kooxda kubadda cagta Arsenal waxayna wadar ahaan haatan haysataa 30 koob iyadoo haysato rikoodhka koobka ugu badan ee FA Cup-ka Chelsea ayaa ah kooxda afaraad ee ugu badan koobka waxay wadar ahaan haysataa ama ay ku guuleystay 24 koob iyagoo haysta rikoodhka ugu badan ee Yurub aan ahayn Champions League Aston Villa iyo Manchester City-na ayaa kaalinta shanaad ku jira iyadoo Villa ay 7 jeer ku guuleysteen horyaalka Ingiriiska marka loo eego Manchester City waxay kaloo Villa ku guuleystay Champions League marka loo fiiriyo Manchester City table-ka la soo saaray ee kooxaha Ingiriiska koobka sida ugu badan ee u kala guuleystay kooxda koowaad waa Liverpool sida hore u soo sheegnay 43 koob ayay haystaa wadar ahaan koobka adduunka dhan ay ka haysto Manchester United ayaa ah kooxda kaalinta labaad soo gashay oo ah 42 koob haysto Arsenalna waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad 30 koob ayay haystaa Chelsea-na waxay ku jirtaa kaalinta afraad oo waxay haystaa 24 dhibcood Manchester City iyo Aston Villa-na waxay ku jiraan kaalinta shanaad oo min 20 koob ayay haystaan halka Tottenham ee soo cagacageenayso 17 koob waxayna ku jirtaa kaalinta toddobaad ayay saas ugu jirtaa waxaan leenahay taageerayaasha meel kasto ay joogaan Liverpool hambalyo ayaan u direynaa hawadana u marsiineynaa markoodii ugu horeysay muddo 30 sano ku naalooda kuna farxa magaalooyinka Ingiriiska maanta haddii la tagi lahaa magaalooyinka Ingiriiska waa la yaabi lahaa wacdaro ayay ka dhigeen Liverpool horyaalka Ingiriiska si xoog ah ayayna kaga qaateen kooxaha Premier League ayagoo indhahooda shanta ay yihiin ayay ku guuleysteen horyaalka asxaabteena Liverpool ha loo hambaliyo cimaamad ay leedahay cimaamada lagu tuuro wili amaantii Liverpool ayaan ku jirnaayo halyeegii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool ee Steven Gerrard kabtankana u soo noqday ayaa fariin hambalyo ah
hambalyo gaar ah u diray taageerayaasha Reds kadib markii ay xalay ku guuleysteen horyaalka Premier League muddo 30 sano kadib. Steven Gerrard ayaa boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka wuxuu ku soo qoray fariin hambalyo ah ee gaar u ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool, wuxuuna yiri: waxaan u hambalyeynayaa qof waliba oo ah Liverpool guuleysiga horyaalka Premier League waa guul cajiib ah oo ay gaareen koox cajiib ah iyo ciyaartooy heer sare ah. Waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo aad joogtaan, ayuu hadalkiisa ku yiri Steven Gerrard. Dhinaca kale, Steven Gerrard ayaa wuxuu si weyn u ammaanay tababaraha Jurgen Klopp, wuxuuna Gerrard ku soo xiray fariintiisa salaan kaas ahna u diray taageerayaasha Liverpool, isagoo xusay in 30 sano ah ay sugayeen ka hor inta aysan ku guuleysan horyaalka. Wuxuu yiri: dabaaldeg ha bilowdo. Si kastaba ha noqotee, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xalay garoonkeeda Stamford Bridge 3 dhibcood kaga qaadatay kooxda Manchester City kadib markii ay kaga badiyeen 2-gool, iyadoo natiijada kulankaas ay ka dhigtay in Liverpool loo caleemo saaro hanashada horyaalka Premier League muddo 30 sano kadib. Weli Liverpool ayaan ku jirnaaye, Liverpool waxay kulan walba u ciyaartay sida inay tahay fursadoodii ugu dambeysay. Pep Guardiola maqal hadalkiisa iyo fariintii uu u soo diray kooxda kubadda cagta Liverpool. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa qirtay in uu ku guuldareystay inay xilli ciyaareedkan kula lamaan horyaalka Premier League. Kooxda kubadda cagta Liverpool Reds ayaa hanatay horyaalka Ingiriiska muddo 30 sano kadib. Waxay xalay u dabaaldegtay horyaalnimada England markii ay Chelsea 2-gool ku garaacday kooxda kubadda cagta Manchester City oo loolan aan tabar badnayn kula jirtay kooxda macalinka Jurgen Klopp. Citizenka ayaa tababarahooda Guardiola ayaa cadeeyay in Liverpool ku haminaysay hanashada horyaalka in ka badan kooxdiisa, waxaana uu sheegay in kooxdiisa soo bandhigtay xamaasad ka yar tan dhigooda Liverpool. Waxaa laga yaabaa inaanan la imaanin xamaasad ay iyagu la yimaadeen. Liverpool waxay kulan walba u ciyaaraysay si la mid ah inay tahay fursadoodii ugu dambeysay, ayuu yiri Pep Guardiola. Liverpool waxay sameysay joogteyn cajiib ah, waxaan luminay dhibco bilowgii xilli ciyaareedkan, balse iyagu ma aysan khasaarin wax dhibco ah, ayuu hadalkiisii ku sii daray macalinka reer Spain ee Pep Guardiola. Guardiola ayaa sidoo kale ku goodiyay in fasal ciyaareedka dambe la imaan doonaan qaab ciyaareedkoodii cajiibka ahaa ee ay Liverpool sameysay fasal ciyaareedkan si ay ugu soo ceshtaan ku guuleysiga horyaalka Premier League, ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay macalinka reer Spain ee Pep Guardiola. Markana haddaan fiirino wararka suuqa kala iibsiga iyo wararka xanta, waxa uu la mid yahay Xavi, Leo Messi oo ammaan uu qubeeyay Artur Melo oo sii tagaya kooxda kubadda cagta Barcelona. Kabtanka kooxda Barca ee Leo Messi ayaa ammaan uu qubeeyay kubadqaabeeyaha kadka dhexe ugu ciyaara ee Artur Melo, isagoo ku tilmaamay inuu la mid yahay halyeyga Barca ee Xavi Hernandez. Kooxda Juventus ayaa qarka u saaran dhamaystirka heshiiska Artur uu ugu soo biirayo dhankooda, isagoo kooxda reer Spain ee goor hore kala heshiiyey saxiixa kubadqaabeeyahan da'da yar, balse 23 jirkan reer Brazil ayaa taageero weyn iyo ammaan kala helay xidigii uu ugu wanaagsanaa ee uu abad la ciyaaro, waana Messi. Uu xidigan ku ammaanay qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo awoodda uu u leeyahay inuu kubadda wax badan maareeyo. Baraha bulshada ayaa laga helay muuqaal ay kabtanka Barca ku ammaanayo Artur xilli laacibkan uu ka sii hayaamayo kooxda Camp Nou ka ciyaarta. Waxa uu in badan
shabaha Xavi sida uu jecel yahay in uu kubadda haysto, in uu baasas gaagaaban ciyaaro, inuusan kubadda lumin, ayuu yiri 33 jirkan weerarka kaga ciyaara Barca. Waa uu adag yahay waana uu iga yaabiyay, ayuu ku daray Leo Messi hadalkiisa. Arthur waxa uu leeyahay qaab ciyaareedka Barcelona durba waxa uu fahmay tababarka, taageerayaashana way jecel yihiin ciyaaryahan ku wanaagsan kubad hayshada, ayuu yiri Leo Messi. Muuqaalkan ayaa hadda laga soo helay baraha bulshada, waana wareysi uu horay bixiyay laacibka reer Argentina, balse weli si cad ma uusan uga falcelinin arinta lala xiriiriyay bixitaanka Arthur Melo. Leo Messi ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyay fariintan.